بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan ku soo jirnay kitaabkeennii maqaasidu الصawm oo uu iska lahaa cabdulcasiis ibnu cabdisalaam. sidaan shalayba soo sheegnay waxaa sheegnay kitaabkan inuu ka mid yahay ama si guud uu ku saabsan yahay culumta shareecada, culumta kuweeda ugu muhiimsan, culumta shareecada kuwa ugu muhiimsan waana cilmu lmaqaasid. cilmu lmaqaasidna marka la soo koobo waxaa laga wadaa baan nidhi waa asraarta iyo xikamta iyo gaayadii ujeeddada uu shaaricu ka leeyahay takaaliifta addoommada u saaray. masalan ilaahi tabaaraka wa tacaala wuxuu inagu fardeelay salaad, wakadaalika wuxuu inagu fardeelay inaynu soonno, wuxuu kaloo inagu fardeelay inaynu xajinno, wuxuu inagu fardeelay inaynu xoolaheenna qayb ka mida bixinno. ujeeddadiiyo maqsadka marka shaaricu arrintaa uu ka leeyahay in la fahmo, cilmiga iyo jidka loo maree kugu kaalmeynaya loo yaqaanaa cilmu lmaqaasid. cilmu lmaqaasid marka waxaan nidhi laba qaybood buu ka kooban yahay oo imaa inay culimmadu ka hadlaan almaqaasid aljus-iya waxa loo yaqaano, wa imaa inay ka hadlaan almaqaasid alkuliya. shalay marka xoogow muqadimo yaroo kooban oo tarjamadu sheekhu ay ka mid tahay ayaynu soo marnay. halkan marka waxaynu ka gudagelaynaa kitaabka ujeeddadiisa iyo lubbigiisii. sheekhu wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim. haddaynu qaadanno ra'yiga odhanaya kitaab mustaqilo waayo oo sheekhu uu gooni u qoray, basmaladan marka isagaa qoray oo bismi illaahi araxmaani araxiim buu kitaabkiisa ku bilowday. in bisinka wax kasta oo la bilaabaya lagu bilaabana waa hadyigii salafka, waana jidkiiyo dariiqadii uu inoo jidayay allah tabaaraka wa tacaala fi lqur'aan. waxaa kaloo nebiga ka sugan sala allahu calayhi wasalam kullu amrin dii baalin laa yubda'u fiihi bibismi illaahi fahuwa abtar. wax kasta oo ilaahay magiciisa aan lagu bilaabin oo ujeeddiya yool in laga gaadha laga doonayo, marba haddaan magaca ilaahay lagu bilaabin buu nebigu yidhi waa wax aan barako lahaynoo daba go-anoon meelna gaadhayn. wain dacafahu bacdu ahlilcilmi, xadiiskaas duruqdiisa marka la soo ururiyo culimmada qaarba ha daciifiyeene, laakiin haddana xufaadda muslimiinta in badan oo ka mid ah ayaa xadiiskaa qaarna taxsiiniyey qaarna tasxiixiyey. kadaalika waxaa la soo guuriyaa ijmaac in bisinka lagu bilowdo wax kasta oo wanaagsan oo khayra inuusan muran ka taagnayn. waxaaseba intaa ka badan axaadiista saxiixa ee nebiga ka sugan sala allahu calayhi wasalam ee nebiga kutubtii uu u qorayey nimankii xilligii cahdigii dacwadu ay fidaysay sulxulxudaybiya ka dambeeyey, muluugtiiyo boqorradu u kala dirayey, waa kii nebigu magaca ilaahay ku bilaabayey sida saxiixulbukhaari iyo kayrkiiba ku sugan. marka in bisinka lagu bilaabayey kitaabkii ilaahayna waa lagaga dayanayaa, nebigana way ka sugan tahay sala allahu calayhi wasalam, waana hadyigii salafka itifaaqan. marka hadduu isagu bisinkan qorayna asal in kutubta bisinka lagu bilowdo waayo. hadduusan isagu qorinoo kitaabkan uu kitaab kale ka mid ahaana iyadana waxaan nidhi asalkii kitaabkii laga soo gooyey ayuu bisinkan ka mid ahaa. waxaan shalay ishaari jirneen nidhi kitaabkan imaa inuu kitaab kale ka mid ahaa oo laga soo gooyey, wa imaa inuu sheekhu intuu muqadimada marka hore ka tegey oo kitaabkii ujeeddadii qoray isagoon muqadimadii u soo noqon inuu ka dhintay. labadaba suuragal waay. sheekhu marka wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim. kitaabu asawmi. asawm kitaabkii soonkiibuu u baab yahay buu sheekhu saasay ka dhigan tahay. kitaabku waa bimacnaa jabtar, cutub waay markaad fuqahada agtooda joogto. fasalka waxay u yaqaanaanna oo waxa inagu iskuuladii marka la joogo lesson loo yaqaan 10
fasalkaana waxaa hoos taga furuuc kale oo kasii say farcanta baab iyo mas'ale iyo xukun iyo waxbaa hoos taga ashaa marka asoomu ku jirto culimadu waxay leeyihiin cahdiyo waay cahdigan waa dihni oo waxaa laga wadaa soomka meeshan lagaga hadlayo waa soomkii waajibka ahaa calaa xaddi qowlihi tacaala id humaa fi lgaari waxaa kaloo la odhan karaa ashani asawmi ku jirtaay waa ashii jinsiyadaheeda istiqraaqiyadaheedo soonkii waxa meesha lagaga hadlaya soom waajibun ma ahee soom oo dhan buu sheekhu rabaa inuu ka hadlo min xaysu aljinsi xagga xukunka marka laga fiiriyo ila soomku wuxuu u qaybsamaa qayb waajiba iyo qayb manduuba iyo qayb muxarama sayba isku jira marka soom oo dhan buu waana sida risaalada ka muuqata kitaabka akhris waxaan ugu tegi doonaa sheekhu soo ka hadlayo soonkii sunnada ahaa ee tadawuc ahaa iyo kii la isku muransanaa sida shuwaalka oo kale ila soomaa ma bannaan tahay mise ma bannaana waa cinda ahlilcilmi khilaaf baa ka jira inkastoo khilaaf ictibaar badan uusan lahayn laakiin haddana imaam maalik iyo keyrkii baa laga soo guuriyaa maalmaha 6 shuwaal qofku inuu soomo sanad kasta inay karaaha tahay kadaalika wuxuu inoo keeni doonaa soonkii muxaramka ah xaaraanta in la soomo sharcigu diiday sida maalmaha ciideynka iyo ayaamu tashriiqa iyo kuwaas oo kale marka wuxuu yiri sheekhu wafiihi kitaabkan dhexdiisa waxa ku sugan 10 fusuulin 10 fasal 10 cashir ayaan kaga hadli doonaa fusuushan sheekhu marka uu sheegi doono qaaliban san shalay ishaarnay wuxuu kaga hadli doonaa wixii ilaahay ka waafajiyay ahkaamta soomka isagoo inta badan isku dayaya inuu ama aayad qur'aan daliishado ama xadiis nabi ka sugan sallallahu alayhi wasallam marka qaarna xadiis daciif uu keeniyo laakiin waa min baabi fadaa'il al-a'maal xadiiska daciifka ana ma lagu amal fari kara min baabi fadaa'il al-a'maal hadii shuruudiisi loogu talagalay laga helay ittifaaq bay culimada qaar soo guuriyaan sidaa darteed oo wax loo qilday kariyo aqlabka nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam xaga fiqiga marka la fiiriyana sheekhu inta badan wuxuu ku socdaa ala madhhab al-imam al-shafi'i laana sheekhu Izz ibn Abd Salam waxa sheegay shalay inuu kamida casrigiisi aymadii Shafi'ida ugu waaweynaa wuxuu kaloo sheekhu iska ilaaliyay intuu 10 kitaabkan uu qorayay inuu madaahibta iyo khilaafka culimadii aaraadooda soo guuriyo maadaama kitaabkan maqaasid loogu talagalay iskuma lugeynin hebel baa halka yiri hebel baa ku khilaafay illa inda dhikri al-kuhl bi culimadu dhahay masalatu al-kuhl markuu ka hadlay qofka sooman inda kulma marsan kara waanu tagi doonaa markaas xoogoo khilaaf yar soo guurinaya al-fasl al-awwal wuxuu ku saabsan yahay fi wujubihi soonka waajibnimadkiisa soonku inuu waajib yahay sheekhu laba arrin buu u daliishaday mid waa midda koowaad waa aayad qur'aan ah midna waa midda labaad waa xadiis nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam waxaynu inta ugu daraynaa intayna isaga diladiisa u tagin ijmaacu ahli ilmina ku dar soonku inuu waajib yahayna waa mas'ala aan muran ka taagnayn muslimiinta dhexdeeda wajaahiduhu kaafirun qofkii wujuubka soonka diidana waa gaal muslima noqonay bal culimadu waxay yiraahdaan waa wuxuu ku jira soonku ahkaamta sharciga qaybo kamid oo kooban oo loo yaqaan al-ma'lum min ad-din bi-darurati hatta caamada banaanka maraysa taqaan inuu soonku waajib sida darteed sheekhu wuxuu ku bilaabay qaala Allah ta'ala alla wuxuu yiri ya ayyuhalladhina aamanu warayku wi alliya rasuulka rumeeyayow kutiba waxa la waajib yeelay calaykum korkiina as-siyaamu inaad sootaan kama sidii oo kale kutiba loogu waajib yeelay calladina kuwii korkooda min qablikum idinka horeeyay xikmadii ujeedada soonka laynagu waajib yeelay waa maxay la'allakum tattaquuna ay likay tattaquu si aad ilaahi ooga baqdaan ya ayyuhalladhina aamanu nidaaga waa la iska garanaya cid loo dhawaaqayo waa inaga iyo inta halkan fadhininay naga maqan ama ha dhimata midiba ka timada makaankan yeesan joogin kutiba waxaan iyaduna kutiba waxay kamid tahay min siyaqil amri ghayri as-sarihati usuuliyiintu markay ka hadlayaan amarka ilaahay markuuna amrayo quraanka awaamirta ku timid
ayuu waxay u qaybiyaan iyo sunnada ama awaamirta shaarica laba loo qaybiyaayo amar sariix ah oo sida waxaan samee ah ifcal iyo amar aan sariix ahaynoo xoogow amarkii buu ku cadiyaa markaas si u fiiriso laakiin siiqi luqada lagu yaqaan ma aha kutiba marka iyo wixii ka farcamaba kuwaasay la mid tahay bimaana kutub waxay ka dhigan tahay waxa leedin amray waa asiyaamu soom baa leedin amray aayadu waxay sheegtay in uun soon layna amray soonkaasi ma sanadkoo dhanba ma bil ka sanadka kamida quraanka aayadaha ka dambeeya aayada mujmalkeeda cadeeyo kutiba calaykumus siyaamu markay aayada dhamaatay ilaahay wuxuu yiri ayaaman macduudaat soonka leedin ku farad yeelay waa maalmo kooban oo maalmaha kooban sanadka xagee kaga jiraan aayada kala si cadeysayo shahru ramadaan alladhi unzila fihi alquran wa soon baa leedin ku waajib yeelay soonkaasna sanadkoo dhan mee waa maalmo kooban oo tirsan maalmahan maalmo adigu waa khiyaar u leedahay meehe waa bil la yaqaano ramadaan la yiraahdo ilaahay wuxuu yiri kama sidii oo kale kutiba loogu waajib yeelay ala alladina min qablikum kuwidin ka horreeyay kuwa inaga horreeyay mufassiriintu markay ka hadlayaan aayada qaar waxay yiraahdaan waa nasaaradii inaga horreeyay nimankan kristanka hadda loo yaqaan ee kitaabkii injiil lagu soo dejiyay nabi ilaahi ciisa loo soo diray ayaa soonkeenan oo kale qaabkeenan loogu fardeelay qaarna waxay leeyihiin may waa ahlu kitaabka qaarna waxay leeyihiin waa ummadii inaga horreeyay oo dhan sida fiicanna wax ee saxda waxa weey umuumka in lagu daayay kama kutiba ala alladina min qablikum ummadii inaga horreeyay oo dhan waay markaas waxay kale culimadu yiraahdeen kama kutiba tashbiihas sidii ila waxa leena leeyahay soom baa waajib idinku ah sidii kuwii idinka horreeyay loogu waajib yeelay isu ekeyntan marka soonkeeniya kuwii hore la isu ekeysiinayo waa dhankee waxay leeyihiin culimadu waa tashbiihu alficli bilficli duuna almafcuuli waxa la isku shabahayaa waa soonka guud inay iyaguna soomeen oo soob lagu waajib yeelay inaguna soomkii oo kale aan lagu waajib yeelun baa laynoo cadeeyay laakiin waxa la sameeynayo tiradiisa iyo qaabka loo soomi iyo waxa haaraanta inaga iyo wixii u banaanaa iyo inay isku mid noqdaan shardi ma ah waa ku nabiga oran jiray sallallahu alayhi wasallam markuu ka hadlaya ilaahay baa qiyaamada arkaysan saxaa markuu ku lahaa innakum satarawna rabbakum kama tarawna hada alqamara nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri maalinta qiyaam jannada markaad gashaan rabbigiin baad arki doontaan sida dayax 14 oo dhameystiran dayaxa sidaad u aragtaan oo kale marka nabigu muxuu isku shabahayaa nabigu wuxuu isku shabahayo waa labada aragti ee maaha inuu isku shabahayo rabbi iyo dayax ee nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam sida dayaxa qofka arkay 14aadku san daruur ka sokeyn ninka jooga Sawsi iyo ninka Islii jooga ninka Gaaris jooga isku si u arkaan oo lagu kala duwaneyn sidaas nin walba isagoo jannada meeshiisa iyo gurigiisa joogo ayuu rabbigu u arki doonaa marka waxay leeyihiin taasoo kale la mid tahayo soonkan aan soomayno waa inuu waajib sidii qolooyinkii inaga horreeyay soon loogu waajib yeelay ee lagama wado si soomi jireen iyo qaabkoodii iyo waajib inagu ah maba taas ma cad shaaricu ma cadeyn xikmadu soonka marka maxay tahay la'allakum tattaquuna ay likay tattaqu si aad u baqdaan la'allakum tattaquuna sheekhu arki doonay bal suu ku fasiraan aragno wuxuu yiri macnaa hadalkan waxa laga wadaa la'allakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaad iska jirtaan annaar ama tattaquuna aad ka cabsataan labadaba waa la oran karaa fa kayfa tattaquuna in kafartum yawman yaj'alu alwildana shiba ayada marka la fasirayo inki tafsiirka akhriso garanaya tattaquuna marka lafdigan attaqwa asalka luqada marka loo yimaado isjirid iyo is-ilaalin waa qofku inuu shay iska ilaaliyo marka la'allakum tattaquuna waxay ka dhigantahay bisheekhu yiri la'allakum waxaad mudantiin tattaquuna inaad iska jirtaan oo iska ilaalisaan annaar cadaabka bisawmihi maalinka soomka yani soomka waajibka soomidiisa dheh fa inna sawmahu soomka leedinku waajib yeelay soomidiisu sababun wuxuu sabab u noqdaa lighufraani dhunubi qofka in dhunubti loo dhaafo dhunubti almuujibati ee waajibinaysa linnaar cadaabka inuu galo laakiin culimadu waxay leeyihiin la'allakum tattaquuna macnaha sheekhu uu ka fahmay oo kaliya kuma koobna
لعلكم تتقون وعلى عمومها لعلكم تتقون وحد مدنتين الناس كجرتان عذاب كله واصح لعلكم تتقون waxay noqon kartaa kale waxaad kale mudantihiin bisha iyada maalmaheed inaad iska jirtaan cuntadii iyo cabitaankii iyo galmadii dumarka waxa kale inaad iska jirtaan mudantihiin wax kasto fuxshi iyo dambi ah marka umumka in lagu wadaaba ka macna fiican in sidoo isagu takhsiisiyo lagu socdo lianna la mukhassisa waxa ayada khassisay ma jiro iska soo marka wa fi sahihayn sheekhu wuxuu yiri labada kitaab ee la isku waafaqay sixadooda oo Bukhari iyo Muslim ee dhexdooda waxa ku yimid aan nabiga waxa laga wariyay sallallahu alayhi wasallam annahu nabigu qaal inuu yiri buniya wala dhisay al-islaamu islaamnimadii ala 5 shantir baa lagu dul dhisay nabiga sallallahu alayhi wasallam ko ala an ta'budu allaha alla inaad caabudo oo takfuru aad ku kufridood ku gaaladood diido bima duunahu wixii ka soo haray cibaadadiisa wa iqaami salaati iyo salaada inaad toosiso salaada inaad toosiso waa maxay inaad caadatan u tukatamaha inaad shuruudeedii iyo ahkaamteedii barato wa itaa'i zakati iyo zakadii in la dhiibo la bixiyo oo yaa la siini dadkii loogu talgalay sharcigu sheey wa hajjil bayti iyo in loo qasdo kacbada sharafta leh waa xajkana naqaad iyo wa sawmi ramadaana bisha ramadaan in la afxidho riwaayadka qaar soomka soo hormariya jiro xajka dib mariya وخلاف عند أهل العلم صونك هي صلاة مركل أعماشك كلا مركل سبر بردقية توحيدك كدي بعملك وقفل لبضن ونتقدرنا إن شاء الله تعالى شيخ مركل آياتني حديث كان وحوص وقاتين إن التصيان على وجوب الصوم أما على وجوب الصيام كاتر هذا صومك إن واجب هي وأنا كان شاري سوعة ديني أحكام الشرع تكان وحيالها الشارع وأضوامه كو واجب هي ما markay galaan oo shaygu uu yimaado ayuu cilmigiisu waajib noqdaa mise intuusan soo gelin buu cilmigiisu waajib yahay wakan shalay marka masalada ka hadal intaan fasalkan ka bixin riwaayadan sheekhu hadda uu soo qaatay wa fi sahihayn lafdigan hadda meesha ku yaalay ولفظ مسلم لكن لفظ عادي مشهور كتقنان لذيك هذا وضح حفظتين على 5 وحكدا بين جري شهادة أن لا إله إلا الله مركا لكن مدا على أن تعبد الله مسلم باقوني للإنتاس سؤال بها مركا هلكن سويدين لي صومكو قفك ينو صومها صوم بالينو واجب يلي وحان لينو شيء صومكا إساقها قابك اللو سوميان الشرعي وينو عدي سؤال باسويدين لمرك قفك هدي سوميو بشي رمضان سفضايش سانك قاعدة دون اسكده الفصل الثاني شيخ وحو يري فصل كلبات وحو كساب سيهي في فضائله صوم كفضائشيسا فضائش المركز شيخ وشيخي دون واتضبو يدو مجمل مركز ورشيخي oo duuduuban kadib uu deetana tafsiil iyo faahfaahsan iyo adiladeedu inoo keeni doona xiri sheekh marka li sawmi soomka waxa u sugnaaday faa'iidooyin isaga u gooni leeyahay koow rafcu darajati darajaadkan qofka sooman oo kor loo qaado darajaadkaas culimadu waxay isweydiiyaan ma darajaatul ubudiyya oo xagga adoonnimadu qofka ku kor noqono adoon darajo sare taagan buu noqon sida askartuba u kala sareyso mise waa darajaad fil janna siyaaqa sheekh hadaynu fiiriniya xadiisu keenay waa darajaad fil ubudiyya laakiin labadaba inay noqdaan wax diidayay ma jiro labadaba laana ad-darajaat fil ubudiyya waxa ka laazima ad-darajaat fil jannati kullama adoonku ubudiyadiisu ay sareyso adduunka markuu joogo darajaadka iyo jannada boosku ka dagayna waa ka sareysaa midku ka sareeyay laba wuxuu yiri sheekhu soonka waxa laga faa'iido waxa kamida wa takfiirul khati'ati dhunubtana iyadana waa lagu dhaafaa dhaafida dhunubta wuxuu ka wadaa qofka sooman dambigiisa lagu dhaafaa wa kasru shahawaati soonka fawaa'idiisa waxa kamida shahawaadka iyo doonitaanka naftana waa jabiyaa wa takfiiru sadaqati sadaqooyinka badintoodana soonka fawaa'idiisa kamid
qofku markuu gaajada dhibkeedu arko xooluhu shil ku bakhaylay waa bixin oo dadka baahan buu ogaanay dhibka haysta kaas xoolihii bixin wa tawfiiru taa'ati waxa kale soonka laga faa'iideystaa taa'adii qofka oo badata inta masaajidka fadhin jiray waagi hore qadar loo kala carri jiray habeenkii 8 saac masaajidka la fadhiya dad baan i'tikaafay taraawix baa la tukanaya waxa laga yaabaa shantii waqti masaajidka lagu tukado wa tawfiiru taa'aadki oo ziyaado farabata wa fawaa'id soom iyo wa shukru aalimi al-khafiyati waxyaabaha qarsoon midka xog ogaal ku ah oo lagu shukriyo oo qaabkee loogu shukrin sagayno fasiri doon iyo walin zijaaru inuu qofku ka reebtoomo ka tago an khawaatir al-macaasi wal mukhalafat waxyaalaha sharciga khilaafsan ee garab marsan iyo dunuubta macaasida inuu ku fikiro oo khawaatirtiisa ku soo dhacdo ilaan marka sooman tahay xoogo xataa macaasida ku fikirideedu iyo xumaan ma sameeysan iyo waxyaalo inta badan shahawaatu nafsu ay keeni jirtay qofku ma ku soo dhacaanba masaajidka fadhiya quraan akhrisi iyo dambiga iska ilaaliya taas tabiiciya asal u noqota laakiin inuu dad wax xamaanaya raadsado iyo inuu xumaan iyo faaxisho raadsado iyo inay shahwadiisa ay kacdo oo meel uu ku damiyo raadsadaad bay hortaa bisha rabada marka sheekhu wuxuu yiri khawaatirtii qalbiga qofka maskaxdiisa ku soo dhacaysay waxyaalaha sharciga khilaafsan iyo macaasidi umuumanba iyadana qofka waxa weey waa ka hara waxaan rabaa marka intaan ka bixinaan ka hadlo dadka qaar baa waxay u soomaan waajib ilaahay ku saarayna gudo xogo waana bil rabadaane caafimaadna waa ku jiraayay lisixatina u soom qaarna waxay u soomayaan de soonku waa waajib ee soonna wasanka iyo miisaankana iska dhin oo hadaad ahayd 100 kiilo 95 kiilo aad noqotid maalinka ciidiis qaar waxay u soomayaan soonku waa waajib ee waajibka ilaahay ku saaray iska rid xanuunana way ku hayaane oo cholesterol iyo balaaya kugu badatay iyo dufankana ka yaraado oo waa loo baahan yahay soonka niyada noocaas sharcigu wuxuu yaqaanaa niyatu tashriik waxa weey in qofku niyo shay ilaahay ku waajib yeelay inuu la yimaado min haythu al-aslina shayga u jeeda marka qaar laakiin shayga fawaa'id uu leeyahay ama waxyaabo ka dhasho oo sharcan loo ogolaaday qofka inuu niyadiina ku lamaanayo tusaale kale hadan soo dhaweey qof baa jihaad aaday wuxuu u socdaa ilaahay dartiina u soo jihaad oo muslimiinta iyo deegaanadoodii iyo diintoodii iyo muru'adooda difaac de qaniimana aad soo heshid ninba wuxuu jaamacadaha u dhiganayaa waxbarashadii masaajid u fadhiya cilmigiina baro jaamacadanna ka bax ilaahay dartiina u baro jahli kaga bax dhankan kalena shahaado ka qaado mushaaraad ku qaadatid ninba masaajidka soo geliso weysa qab wuxuu leeyahay iska weysayso le weysadu way fiicantahay tajdiid ku samee dhanna isqabooji waad kulushahayo kiiloomitir baa soo socotay xoogo isir qabooji soo ma dhacdo in badan la isdhex geliyo amal wixii waajibka ahaa qabashadiisi imtithaalan iyo shayga isaga ah waxyaalo fawaa'idiisa iyo thamaradiisa kamid inuu qofku dhex geliyo culimadu waxay leeyihiin waxyaalaha noocaas laba loo kala qaaday wixii sharcigu idmay ogolaaday oo soo ogolaaday مثلا وعمل كان لقبانيو فوائد isaga ka dhalatay thamaradiis hada مثلا soonka in la soomay fawaa'idiisa sharciga inoo sheegayo de soonku wuxuu dhan waa caafimaad asiyaamu nabi wuxuu yiri jannatun wa maxay wiqaayatun min cadaab illahi wa wiqaayatun min al-amraad wa wiqaayatun min adh-dhunubi wash-shahawaati wa wiqaayatun min kulli shay'in حديث كان واجرا وصوموا تصح وإن ضعفه بعض للعلم لكن معنى وصحيح وصوم العافي مادان نبي وحى كسم صلى الله عليه وسلم إن أيري ما من غازية
تغزو في سبيل الله إلا عجلوا ثلثي أجرهم أو كما قال النبي معني سداس وحديثكوا قولت دوشة مجرت إلهي درتي أبحضا وكدبنا غنيمية حول صاهرة إلا هذه غنيمة هلان أجري آخرية هل الهيان صدح مركا الله قيبيه الله يدون كور مرسدين بالنبي صلى الله عليه وسلم مركا اللوي ماذا مثلا صونك وكلا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم نبي محيري فإنه له وجاء شرعي محو شيء يا مرك إن لدولي كرو جهاد لقري كرو يدو قفو غنيمة أورو مركا قال ونيدي سي غنيمة كجرت إن قفك أسومي كرو isagoo rab inuu shahwadii iska jabiyo dhalinyarinimadi soo nabi sida ma dhig maxaa niyadii ku lamaan soon kali ama qofku wuxuu soomeeyo nabi maxamed wuxuu ku leeyahay u soon inay shahwadan ka jabto isagii baa wuxuu leeyahay siyaamu junnatun soonku waa gaashaan culimadu waxay leeyihiin jumhuurtu waxay qabaan cadaabku gaashaan ka yahay laakiin baad cilmi waxay qabaan caafimaadka amraadana gaashaan buu ka yahay muranka bitaag كذلك ويسدي وكله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان صوصامي طهارة قاشد وإيمان كالنسكت طهارة من حيث اللغة النظافة نسوكمت ماذا بل حديث واحد ضعيفه النظافة من الإيمان هذا اسكو صوت الضر وحنوجه ذا شيئا عمل كان لقباني حجك وإما واد حجك وكله نباحو حجينيا سؤال حجي xogo badeecada adana dadka ka soo gado ka soo shaqeyso soo saar loo xajiyo xaj buu aadaya ama niyadiisu waa ganacsi xajkiina waa ku dhaxwada kaasna kadaliga quraanku uu sheegayo markuu ka hadlay muxuu qofka noocaas quraanka laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum wax dambiga korkiina ma ahaan idinku xajinayo ilaahay caabudayo inaad business tijaariya ganacsina aad ku dhaxwadataan culimadu waxay leeyihiin marka amal marka aad qabanayso waajib niyadan aad ku larayso haday tahay amalkan aad qabanayso faa'iidadii laga helay midalan ama wax sharcigu u ogolaaday sida in loo soomo oo kala caafimaad iyo isagoo qofkii soomay hadana caafimaad u niyeysan yahay inuu qofku ilaahay dartii u soomayo hadana uu rabo inuu shahwadii iska jabiyo inuu xajinayo hadana uu ganacsi rabo inuu weyseysanayo hadana uu rabo inuu isnadiifiyo haday waxyaalaha noocaas yihiin saxa sawmuhu wa saxa hajjuhu wa saxat wuduuhu wa saxat a'maluhu kullaha wax dambi ana korkiisa maahan ijmaacan laakiin mid sharcigu uu diiday niyatu taa waxa loo yaqaan marka saad u barataan niyatu tashriik baa la dhahaa at-tashriik fi al-ibaadaat waxa jirta midan caamadu isku khaldaan niyatu tashriik iyo waxaan loo yaqaan riyaaga iyo statuska riyaagu asal waxa ogtiin waa xaraam bil ijmaac waana min akbar al-kabaa'ir waana muhbitun lil 'amal la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa ilaahi subhanahu wa ta'ala kula umum shirki wasooqin riyaagu marka wuxuu kan kaga duwan yahay waan arki doonaa asalka riyaaga qofkan wuxuu uga jeedaa in uu dad kala amalkan tusiyo oo waxaan ilaahay ahayn buu ku weyneynaya amalka dhexdiisa oo waxay dhan culimadu riyaagu asalkiisu waxa weey waa ta'dhiimul khalqi makhluuq in la weyneeyo oo meel uu san lahayn la dhigo midan hadda aan ka sheekay niyatu tashriiguna asalkeedu qofka oo lama jeedin inuu makhluuq ku weyneeyay dan isagu u gooni oo sharcigu u ogolaaday buu amalkii ku dhex sameeynaya marka sooma kala duwana inaad amalkan u qabanayso u fiirsadaad inaad adigu soonkan ku caafimaado iyo sooma kala duwana inaad amalkan u qabanayso ha laga arko ha lagu amaano kala duwan midna waa wax adiga ka gudbay oo cid kale u gudbayaaba oo dadka ka sheegaan waay midna cid kale uma jeedida adigu baa dantaada ku dhaxwata bareefadka sooma idan riyaagu isagu waa muharram furuuqda u dhaxaysa riyaaga iyo niyatu tashriic culimada ka hadlayaan waxay ku soo koobaan dhowr arrimood
وأمرك كوبادي سان شيخنا الرياء وتعظيم للمخلوق تشريك النية وكدوان يهيو يسوي واحد تعظيم للمخلوق وكمجريه قف كان يسوي باوحو الربا عمل كان دنيا وجدي يسوي أوليه أو شرعه إدماء وقلاده إنه كل أحسن ما يستوى وحيكل كوكل دويه رياء حرام إجماعا بخلاف نية التشريك ويبنانتها إجماعا ويبنانتها وحان كوضا إنه قفك حاجة يسوى بسنس وجهده إنه قفك جهاد قاله يسوى حقوق إلهي درتين جهاده وإحنا يتكسوا قنيما إلا قصوا إلى قلبي وجهده إنه قفك ويسوى تبرن وجهده تجديد مركو سمانه ووضوء ويبنانتها وحيك لو كل دوين بعلماء الهدين رياء ومحبط للعمل رياء عمل كبرياء عمل كاغو دنبا هوبن لكن نية التشريك سدا اسمه علماء waxay dhahan amalka ma burisay xogow thawaabki ajri bay nuqsaamisa oo qofka u soomayo imtithaalan li amri ilaahi darti amarku ilaahi ku saaray min baab al-ubudiyyati usoon adoonnimo iyo ninka u soomayo wasanka iska dhin iyo xogow caafimaad ka hel iyo arrimaha niyadiisa ku jirtay iyo midka niyadiisa khaaliska way kala ajri badan yihiin laakiin soonkiisu min haythu sihhatu waxa ma dhabeys xaaraanna ma ah niyada noocaas laakiin riyaagu istutuskina u soonto eeg laga sheego oo hebel waa soon badan yahay lagu dhaho oo hebel waa salaad badan yahay lagu dhaho oo hebel waa xaj badan yahay lagu dhaho oo hebel waa cibaadad badan yahay lagu dhahay taasi koow horta waa xaaraan عملكين ويبورين لئن أشركت لا يحبطن عملك شرك يا علماء حي هذين أصغر يا أكبر لبدي ويسوق عملك لبدي ويبورين شرك يا مركي سجى لبوق قيب سما شرك وحقوق قيب سما رياء ودعفن سجى لبوق قيب سما رياء وحقوق قيب سما رياء الشرك إيوه رياء الإخلاص رياء الإخلاص وحلا ده قف كان عبادة وتشدد وكريه هذه جملة وتفصيلا وإنه الرب مخلوق إنه سكايا كذا بس مساجد كل صلاة قلي صلاة بوتكنيا وتشددوا صلاة وقلي بواحد تهاي حلاقها شيء بس زكوا بحنايا زكوا وحوب بحن واحد تها لقوا أمانة بس وتشددوا عمل كانوا قبا وابتغاء للمخلوق فقط كاسي السقو إنه حاران يهي وعمل كيبورينيو ومن أكبر الكبائر يهي قاركين كفر يقال لما قفكوا قارسين قراي علماء وحيليهين مورا كما تاقنا وحايسوا هارين نوع على بعض اللي يقال رياء الشركي رياء الشرك وحاوي عمل كان أصل كيسو قفك إلهي درتي بأني يستي لكن استتصنع ما صور حق الشيء عقب صلاة مركو قلي إلهي درتي بأو قلي لكن مركو أركضات فيرين هي أو كم مشغول صد أي حاجة يصير توسيع عدكي بقرحيين أما الشيخ الباكوس أدبتو كذايو مركز يعزل الشيخ يقولين صلاة حما يسكتوس كاسو حاجة قابم ويرتو كان ترين بنية دي سبا صاق الشيء هذه مركا عن صاقها بقى إلهي درتي إيو مخلوق وحكا قدوني دي هذا عمل كي صاوة ذاك الشيء ونية ده الله بدي بيسوقتي ماتو عمل كي مبوري مسمى برياي علماء وسوخرها بسيهم وحنا أصل مسألة علماء دهين وانفيرين هنا وشيدوا عمل كانوا بالله ودو عمل كان مركور بالله درتي الشركة أنه وديب كجسود بيري إن شاء الله عمل كيسي ولا أقبلي وناصحي علماء قالوا حليهن ما مربى هدو غير الله أني يستي حبط عمله كله جملة وتفصيلا ومسألة مرن بدن قفك طالب العلم أنا وحكى درسين كرا كتاب كان له يقان الفروق وسكريها الإمام القرافي قاعدة له يقان يعني قاعدة نية التشريك في العبادات هي الرياء في العبادات وصي في عن أكرا دقيق إنك سواء الموضوع دانا يكهدلان لكن سوى ماشي بأكرا دقيق ساقها اللي قرأت هذا مركب شيخ حولي مركب حان مسألة مركب وقول لي هذا حقوق ضدك وحان الشركي الرياء هيري وحال سوى خلطها وحيسك عادي شرع وإدمي حيالها ضدك سوى خلطها وحاكمتها
qofku in uu ku farxo amalku qabtay in lagu amaanay dadku waxay arkaan istisno maaha nabiga muuminka markuu tilmaamay wuxuu yiri qofka muuminka waa qofka xumaantiisuna ay baqid geliso xumaan geliso wanaagiisuna ay farxad geliso soomay almu'minu man sarratu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu nabi sallallahu alayhi wasallam waxyaalaha riyaaga la mudo waxa kamida in qofku mar amal wanaagsan laga arko oo lagu amaano ay dadka qaar ku inaa ku amaanin istusnima ku jirta qalad waa nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam tilka bushra tilka aajilatul bushra lil mu'min sallallahu alayhi wasallam ama tilka bushra aajilatul lil mu'min wa bishara adonka adduunka ugu soo degdegtay in amal uu qabanayo wanaagsan isagu san ilaahay dartii ula jeeday oo cid kale soo waxba kaga rabin dadku inay ku amaanaan isaga xaqiisa wax riyaa kuma jiray tusmid marka masaa'ilka noocaas marka la leeyahay cilmiga ha la barto oo qofku sharciga ha barto waxan oo dhan oo iskaga qalsan oo laf iyo dawraan yaa qofku kala bix maxaa shirkiya in baad kala baran fuul sheekh marka fa amma raf'u darajati intan maanta waxay ka galayna wa fa liqawlihi sallallahu alayhi wasallam nabiga waraadiisa uu yiri ida jaa ahadith yaani kutusunaysa qofku soonku inuu yahay waxyaabaha adoonka darajaadkiisa kor u qaada nabigu wuxuu yiri ida jaa hadu yimaada ramadaan فتحت وحال فرا أبواب الجنة جنة البابدين وغلقت وحال حراء قفل وجبيا أبواب النار نار البابدين وصفدت وحال كتين ديا الشياطين شياطينتي النبي صلى الله عليه وسلم حليه رمضان هدو صوغلو البابده جنة على فرا بابده جنة على فرا وحال قوضا البابده جنة عادي لو فرا الله بلقاوا شيخ وانا اركي دونايه isagu meel kale la aadi doona ta'wiil dib marha baad ilmu sida maray albaabada jannada la furaa waxa laga wadaa bidheen taacad iyo khayrkii baa iska furmi albaabada naarta la xidhaana macaasi iyo dunuubtii wuxuu dhan baa yaraan saasa laga wadaa bidheen laakiin ala xaqiiqati xadiis ku wado albaabada jannada caadi loo furaa albaabada nabi wuxuu yiri naartana waa la xidhaa shayaatiintana waa la katiinadaya riwaayadka qaar waxa ku yimid وصفدت مردة الشياطين شياطين تكوض مدح أدقنا والحنا شياطين تنلحرها انت أنا كهل واكوه وحان مرن كتاقني شياطين تنلليه والحري ميت كان قرين كأنه ينال صعودكم اتشروا سوقف البقرين لما صعود قال قرينه قرآن كوارك ربنا ما ضيته مثل إنك اللي نقول دبل ليه شيطان كا يوقفكم ما نقول أنت ملائكته النفط كقعدوا كذا قاقية كلا محلو حاول دليله وحاول دليل العلماء يلهدي حديث النبي صلى الله عليه وسلم سو النبي اعتكاف كتير أي صفية صوب وقتي مركاسي النبي أكتي سيف فريسته ولا شك يستي كدي من النبي يدي سقي صفية وكنت صوب حال ودويني النبي لبس صحابي بقى النبي يسوع صفية اللي تاجن بيسوع أجمل مركز واحد يسلهن النبي يقف كل تاجن يجرم وينه طلابه هوسك بوبين النبي صلى الله عليه وسلم حول إزدتية إنها صفية وحاسك صفية عدا للتاجنها مركز نحن واحد رسول كلاه يوم ما ذا كاغش كنا هنا وقف أجنبي اللي تاجنات معاذ الله النبي صلى الله عليه وسلم حول مركز سدا ما هي إني خشيت أن يلقي الشيطان في نفوسكما شيئا waxaan ka baqay nabigu inuu shaydaanku wax qalbigiina ku tuuro waa shaydaankee soo yeed hadda la shayaadiinta wala xidhaa nabigu markuu hadlay waa bil Ramadaan i'tikaafuna ku jira wuxuu leeyahay waxaan ka baqay shaydaanku inuu qalbigiina wax ku tuuro shaydaanka waa keen nabigu u jeedo waa midkii qariinka iyaga la soo waxa kale nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu yiri inna ash-shaytaana yajri min ibni aadama majra ad-dami شيطانك بالآمي ووحو كالسعودة ديق ماشو مرحيديديسو دحقادا علماء حيل هذا شيطانكاسي شياطين تودن ما انه شياطين بين الاحمر كليين ايوا ميدك قرينك كوغو لرن شياطين تكلا ما هي علماء وحكى العلماء دريشدان قفكو هابينك بشر رمضان سو ددك قار هابينك انتي ريودان بي iyo mani ka yimaada ma jirto ixtiraamku asalkiisana waa min shaytaan hagu ka yid marka ka qariinka isoo kuma jiro
محل النزاع halka ka bix shayaadiinta kala ku soo hadhay shayaadiinta kale ma iyagoo dhan baa la xidhaa culimada qaar bixi xidhan iyagoo dhan baa la xidhaa waxa oran kartaa wadaadii shayaadiinta oo dhan la xidho dadka aan soomanayn iyo dadka xamanay bisha Ramadaan iyo dadka musalsalaadka daawanaya iyo dadka dhacaya bisha Ramadaan yaa waxaan ku xumbaaray in shayaadiinta waa la xidhaa tiraadeen waxay dhan culimadaasi waxa ku xumbaaraya waa naftooda ilaan asalba qofka waxa dhumiya ma shaydaan ba maya waxyaalaha qofka dhumiya waxa ka mid macaasida ku xumbaaro kow shaydaanka laba waxa ka naftiisa saddex waxa ka dheheen alcaadaatu caadaadka qofka uu la qabsaday Soomaali waxay dhan waxaad baratay waa baaska Sooma qofku wuxuu bartay si fudud uga marqo 12 bilood wuxuu sameeyay jiray inuu bishii Ramadaan hal mar gaf ka dhaw adagtay dheen marka caadaadkii awliin la socda ama waa naftiisa dheen ee meesha shaydaan ma joogo qaar waxay dheen maadaama nabigu yiri wasufidad maradatu shayaadiinta kuwooda waaweyn baa la xiraay kuwoodii yar waa iska socdaan meelaha oo waxa dadka dhuminaya iyaga adigu waa iska mas'ala khilaafiye kaso ولقوله صلى الله عليه وسلم سواء كفديس waxa loo dirsay nabiga hadalkiisa uu yiri xikaayatan isagoo ka sheekeynaya nabigu an rabbihi azza wa jalla Allah tabaaraka wa ta'ala wa hadith al-quds Allah wuxuu yiri kullu amal ibni aadama amal kasto oo insaanku uu qabto ama bini aadmigu lahu isaga iskale illa siyama soonka mooyee fa innahu soon kulli aniga iskalo Allah wa ana aniga ayana ajzi ka abaal marinaya به صومك إسقى والصيام بنقول صومك جنة وقاشان فإذا كان هدئ هذا يوم صوم أحدكم ما متكين مالين تسوميه أو لسوقار ما لا صومنت سنية واجب كودوني هالنقطة نقول فلا يرفض يسن أفحم الله إيمانين ولا يسخب يسن قيلين إنه عي يبوق يوصل الله إيمانين يرفشد فإن سابه أحد حضو قف عايب النبي أو أمس قاتله أسوح الحيطة الله ديره فليقل هيدا هذا إني أنيقو امرؤ صائم قف صامان بانا يقرب مر والذي نبي حيري والذي نفس محمد بيدي الله النبي محمد نبتي سقعنتي زي كوشرتان قدارتي لخلوف فم الصائم لخلوف خاذ إلا قداي إيا إن لكرد قبا labadaba culimadu way sheegaan laakiin sida saxda ee mashhuurka ah waa in khaada la gudo bal imaam an-nawawi qeyrkii waxay leeyihiin in la kordhigo la dhaw la khaluuf wa khata gafwa sax ma leeyihiin sida saxda leeyihiin waa in la gudo liyaad la khuluuf khaad laakiin labadaba waa soo horeeyeen culimadu la khuluuf fami as-saa'imi qofka sooman afkiisa luunka saaran iyo asarka saaran ayaa atiyabu ka udgoon عند الله ألا أكتي يوم القيامة ما ننت قيام من ريح المسك وعذرك دونك وقود عرفتيس نبحر وللصائم قفك الصوم وحا أسق ناضي فرحتان لبا فرحات أو يفرحهما وفرحيو إذا أفطر مركو أفره فرح وفرح يا قفك صومنا بفطره أفركي سوق يكفر حيا قافك وفرح وان شرحتون إن شاء الله وإذا لقي ربه ربي يهدو الله كل منا فرح بصومه صومك وصوصم دونك مركو جو كفرحي وعنه النبي وحى لقوله صلى الله عليه وسلم أنه النبي قال ينهي كل عمل ابن آدم عمل كستو ابن آدم كو سمايو يضاعف والله الله الحسنة هلكي وناك 10 أمثالها طبعا كذب الله قلفتها يعني الحسنة هلكي حسنة سمايو و10 أمثالها طبعا الله كذا وكلوا تسأل قوله إلى 700 ضعف إلا تضبب قل الله لا بلو قارسيو قال الله عز وجل ألا وحيري إلا الصوم صوم كمويه فإنه لي صوم كأنيها إسكاله وأنا أجزي به أنا أضونك كأبالين يدعو كتغا أضونك صوما شهوته شهوديسي إيا وطعامه عنتديسيبا من أجلي أنا درتيب وغتغا وقال وحول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة جنة دحدة وحا كسغا بابا الباب ويقال له ليداهدو الريان
magacaasa loo yaqaan rayaan albaabkii wabxida yadkhulu minhu albaabka waxa ka gala as-saa'imuuna dadkii soomi jiray yawm al-qiyaamati maalinta qiyaam yani dadka adduunka markay joogeen soonka badnaa bas ka gala laa yadkhulu magalayo macahum iyaga la jirkooda axadun cid oo geyruhum iyagaan ahayn cid aan iyaga ahayn albaabkaasi kama geli karo yuqaal waxaa la odhanayaa ayna as-saa'imuuna aawaya kuwii soomi jiray fayadkhuluuna way gelayaan minhu albaabkaasi ka geli faidaa dakhala hadduu galo aakhiruhum kooda ugu dambeeya ukhliqa waa la xidhaya albaabka cidda kama gelaysa waa oo falam yadkhul minhu albaabka kama geliyo axadun cidnaan iyaga ahayn وفي رواية كلا وحا كسوغا إن في الجنة جنة دحدة وحا هذه بابا الباب يدعى لوغو يرو أما لو يقان الريان يدعى به باب كاسا وحا لوغا وقاو لوغا يرو الصائمون ضدكي سومي جري من كان قفكي هذه من الصائمين أدونك مركو جوغي ضدك الصومان صونك بديه كميده هان جري دخلوا وقليا ومن قفكي دخلوا الباب كغالنا لم يضمأ أومي ماي أبدا ولي النبي صلى الله عليه وسلم ولي اللي أنتم جنة كجروا ما هالراضي أون ما قبني وقالوا حول النبي عليه الصلاة والسلام إن الصائم قفك صوما تصلي عليه وحا عيسى الملائكة ملائكة إذا أكل عنده إذا قرتي أكل لقعنا عنده أكتيسة حتى يفرغ إلا ذاتك عنتظعنا يدميستان أنا قفك صوما أكتيسة الراشين كاللقعنا ياي النبي صلى الله عليه وسلم حول الملائكة عيسى إلا أي ذاتك أيها الصونك أي يعني أي عنتظع دميستان أحاديث المركز الشيخ شرح حديث وكذا إن شاء الله تعالى إننا علمي فربلا أنبا حديث كتيرا فأنا شرح إذن شيء بابك أقوه الرياء كتابك أقوه مهم سن أقونا دير معاني وكفر ديانا أقوه في عن سجع مركز أنت أودينا سترتيبا ووضينا وحي سيكدم بيلك وحسكو دينا أدام المسائل اللي سكي غنيهين إني نعرف كفر ضينا إن شاء الله تعالى حديث بريتا شرح دونا انت إن شاء الله درسي إنك البريتا كجارين هلك إن شاء الله ينوي الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى